madaxweynihii kolkaanu isa salaanay een fadhiistay wuxuu yidhi in yari suga waa arrintani waa taariikh wax gelaya weeye in yari suga waan soo kaajayahay adeer cabdi xaashi waa runtaa taariikhdayna geli doontaa waana markii ugu horraysay siyaasi soomaaliyeed oo bulsho soo hor istaagay ogana sheekeeyey siyaasi kalow la kulmay oo kaadi aaday reer nabadii nolol soo dhowaada dhammaantiin waa waaska duqbilow ahaa sheergareeya cajaladdan meel walba ku tuura idinkoo mahadsan saaka iyo maanta waxaan doonayaa inaan idiin si faseexa idinku fasiro khilaafka hareeya guddiga doorashooyinka ee somalilan cabdi xaashi guruub buu wataa ma badno 4 qof bay ka kooban yihiin cabdi xaashi waa guddoomiyihii aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi siyaasaddan aad buu ugu cusub yahay horay wuxuu u ahaa xildhibaan wixii ka horreeyena wuxuu ka shaqayn jiray fanka iyo suudaanta mar wuxuu ahaa agaasimihii tiyaatarka qaranka soomaaliyeed inta badan noloshiisa wuxuu ku soo qaatay heesaha iyo gabayada cabdi xaashi waa horjoogaha hadda guruubka la baxay doorasho ma doonayno guruubkiisa waxaa ka mid ah ninkan aad arkaysaan magaciisa waxaa la yidhaahdaa xayir maareeye wuxuu ahaa wasiirka horeetee warfaafinta soomaaliya dawladdan hadda jirto xayir maareeye waxa uu la soo shaqeeyey madaxweyne cabdulaahi yuusuf madaxweyne sheekh shariif madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dawladda hadda madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waana guruubka cabdi xaashi ee diiddan doorashada ninkan aad arkaysaan waa xuseen carab waxaa weeye xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya wuxuuna ka tirsan yahay guruubka cabdi xaashi ee diiddan doorashada xuseen carab wuxuu soo noqday wasiirkii gaashaandhigga dawladdii ku-meelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed qofkan waa cabdi samatar waxa uuna ka tirsan yahay guruubka cabdi xaashi ee doorashadiidka ah cabdi samatar waxa uu sheegtaa inuu yahay brofesor waxa uu inta badan ka soo horjeedaa dawladaha soomaaliya rajada soomaaliyeed hoos ayuu aadiyaa cabdi samatar waxa uu degan yahay gobolka minnesota ooy soomaalida ku badan tahay ee carriga maraykanka cabdi samatar wuxuu ka shaqeeyaa jaamacadda minnesota university waxaa jirta taariikh reer minnesota oo dhan ay og yihiin taariikhdaasoo ah jaamacadda minnesota ayaa waxay shaqo siisay brofesor gallayr cabdi samatar warqad ayuu qoray oo uu ku dacweynayo brofesor gallayr oo uu kaga been abuuranayo jaamacadda minnesota guddigeeda ugu sarreeyo ayaa waxay ku tiri cabdi samatar waa inaad keentaa caddeen dacwadan aad soo gudbisay cabdi samatar wax caddeena oo dacwadiisa kaalmeenayo ma uusan soo gudbin waxaa dhacda arrinta iyadahayd inay bulshada soomaaliyeed ka war heshay waxaana la ogaaday brofesor cabdi samatar inuu yahay jaajuus aan soomaalida u oggolayn inay horumar gaaraan 4 shakhsi ee iska dhigay milkiilayaasha kuraasta waqooyi soomaaliya markaan taariikhdooda bartaa uga tago waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u soo gudbiyo xaqiiqda dhabta ay jirto guddiga doorashooyinka ee waqooyiga soomaaliya waxaa laga doonayaa inay noqdaan 11 madaxda ka soo jeedda waqooyiga soomaaliya 2 garab bay kala noqdeen 2 hoggaamiyo ayaa kala haysto mid waa ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka soomaaliya oo kursiga u sarreeya ku fadhiya midna waa guddoomiyihii hore ee aqalka sare ee soomaaliya oo sheegtay inuu mas'uul yahay si caddaalad loo helo dawladda federaalka soomaaliya oo uu hoggaaminaya ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble waa u kala qaybiyey 11 xubnood wuxuu yidhi 4 cabdi qaado 4 mahdi qaado 3 soo harto dawladda federaalka soomaaliya oo mas'uul u ka yahay mudane xuseen roble oo dhexdhexaade ayaa soo magacaabayo 3 xubnood wuxuu ra'iisul wasaaraha ula haray in guddiga 11 ah intay meel fariistaan doorasho dhacdo qolana ay guusha raacdo guushaasoo ah in guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waqooyiga soomaaliya uu bartaa ku soo baxo cabdi xaashi iyo guruubkiisa aan hadda ka soo sheekeeyey arrintaa iyada waa diideen waxay yidhaahdeen 8 ayaa isdooranayso oo macnaheedu tahay in guddiga 4 ah ee mahdi guuleed iyo guddiga 4 ee cabdi xaashi inay meel wada fariistaan ummaddanu ay ka dharagsan tahay 4 inay qoladaa raacsan tahay 4na asaga raacsan tahay oo wax natiijo aysan ka soo bixin taa waxay kuu caddaynaysaa inay doorasho diid yihiin waxay diideen guddiga 3 xubnood ah ee ra'iisul wasaaraha federaalka soomaaliya ee doorashadii lagu aaminay ee uu soo magacaabay in guddiyadaa ay kala saaraan guddoomiyana sidaa ku yeeshaan dalka soomaaliyana doorasho lagu aado guruubka cabdi xaashi waxay taagan yihiin wax doorashoon gelayna ma leh
ra'iisul wasaarihiina eed bay dusha ka saareen bay ila daawada hadalkooda optionska uu gudbiyey cabdi xaashi waxaa ka mid ah si xal loo gaadho kow wuxuu yidhi mudane ra'iisul wasaare sidii aad igula heshiisay ee markhaatiga lahayd haddaad xubnihii aad dhexda u haysay waxba naga sii weyday sidii qowlkaagu ahaa 8 xubnood haysto horteen markaa kadib waa ogolnahay natiijada ka soo baxda ilaa haddana saasaan ku taagan xayir maareeye wuxuu si toosan gabasho lahayn u yidhi ra'iisul wasaare haddaadan kuraasta noo boobayn wax doorasho ah oo dhacaysa ma leh soomaaliyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble soomaali oo dhan baa aamintay waxaana lagu aaminay doorashada dalka bal arrinta waqooyiga waxa uu ka yidhi ila dhegaysta mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama senatorka ah iyo midka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaa u sinaataan la rabaa macnaheedu waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaas sidaan saaka idaacadda ka dhegaysanayay soo maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dekreetadeedu kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin guddiga siid ee somalilan waxaan idin xasuusinayaa horena idinkugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra'iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra'iisul wasaaraha iyo madasha wada tashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka mas'uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble waxaa aamintay soomaali oo idil waxayna ku aamintay masiirkeedii waxaana laga sugayaa doorasho xor iyo xalaala inuu qabto mucaarad iyo muxaafad siduu wax u wada waa lagu kalsoon yahay cabdi xaashi iyo gruubkiisa ee diiday doorashada xalaasha inay dhacdo hadda waxa ay kuleetiga ku dheggan yihiin ra'iisul wasaaraha dalka soomaaliya waxayna ku haystaan mas-uuliyaddiisa doorasho bal waxaad ila dhegaysataan cabdi xaashi iyo qaabka uu ra'iisul wasaaraha jawaab uga bixinaya hadalkiisii u dambeeyey wuxuu u yeertay 4 xubnood ee ahaa doorashooyinkeen anigu magacaabay wuxuu ku yidhi anigaa ka mas-uula doorashada cid kale oo wax kuliya ma jirto idinku waxa weeye doorasho yacni inay isdoortaan guddigii oo isku dhan 11kii inaad doorashadaa tagtaan haddaad tegi weydaan ood dooran weydaan waa idinka saaraya oo hadda isaguma magacaabinoo ogaada anaa 4 soo magacaabay ya isaguna liiskii oo midaysan unbuu oyuu qoray soomaaliyay bartaa waxaa ka cad mudane cabdi xaashi iyo gruubkiisu inaysan doonaynin doorasho lagu kala baxo waxaa halkaa ka cad inuu challenge kula jiro shaqada ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo Soomaaliya dhan aamintay cabdi xaashi maareeye xuseen carab iyo cabdi ismaaciil samatar iyo gruubkooda waa xildoon waxayna raajicinayaan inay xildhibaano noqdaan sidaad u jeedaan cabdi xaashi iyo gruubkiisa ma doonayaan doorasho xor iyo xalaale inay kula tartamaan Soomaalida ka soo jeeda waqooyiga reer nabadii nolol sheergareeya cajaladdan gaarsiiya beej walba jawaabta raggan waxaa bixiyey wasiirka warfaafinta dalkeenna Soomaaliya Mr. Dubbe ila daawada fadlan marka waxaan xasuustay 2 nin oo magaaladii sheegi maayo magaalo Soomaaliya ku taala ay hadday shaneemaba arkaan walaal shaneema caawa jirta way shiidi jireen tuuriyo hada waa shaneemadaba ma garanayo wax ku daray 2 dhagax bay soo qaadanayaan shaneemada hadday arkaan way tuuriyeynayaan markay tuuriyayaan nin baa soo daaya ama dadka ka celiyo hada iska daayaana bixinayo waxay qabaan habeenkii dambe soo tuureen oo dhagaxiba ninkii ku dhacay ninka laftiisii soo markii la qabtay bay oo tolmiyaano ninkii idin imanay مثلا نيكو نيكا حالة دخرته مركاين مكان ما كي وضياشها برايم مينستر كي ويمريانو عد سود دين دونتا قرن مايو مركاين تاسين تاسو كدافع